الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين dhammaan madaxda gobolka ugu horeeya madaxda xisbiga gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga madaxda kale ee heer qaran maayarka gobolka Gabiley dhammaantiin xisbiyahaniinta halkan soo fadhida waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahadle xalka roobka badan baa inoo daayay abaartii ilaahay wuu inaga soo jebiyey inta kalena ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay roob khayr qaba inuu ina siiyo intaa ka bacdi halkan waxaynu isugu nimi maanta aynu ku nimi kulankaa isugu timaadeen gobolka reer Gabiley iyo degmooyinkiisa dhammaan xisbiyahaniintii xisbiga kulmiye aad iyo aad baan ugu faraxsannahay haddaanu nahay hoggaanka xisbiga waxa aynu isku dambaynu nahay dhammaanteen waxaynu ku dadaalaynaa xisbigeenu siduu ku guulaysan lahaa qof walo oo xisbiga kulmiyaha mas-uuliyadda baa ka saaran siduu ku guulaysan lahaa guushiisu waa guusha kale waxaan qodob baan doonaya inaan maanta ka hadlo waxaynu soo dhow qaadqaadashadii oo laba gobol ka bilaabato Ramadaan ka bacdi noo bilaabi doonta dhiig bayna way ka soo horeysaa dhiig waxaa laga soo saaray madaxweynuhu wuxuu waynu xusaynaa horena waynu xusin jirnay dowladda nutiijada xisbiga kulmiye kor baa loo qaaday in loo qaadana way tahay waa maalinta keliya ee aynu leenahay ee qaran maalintaa inaynu xusno waynu ku waajib waxaynu ku xusaynaa maanta dalkeenna abaara baa ka dhacay meel kasta oo la isugu yimaado sidii dadka abaaroobay ee xoolii ka baxeen wax loogu ururin lahaa bayna xafladaha dhiig baynu xusayno isugu imanayno inaynu ugu ururno inaynu maalinteenna qaran xusno intaba waxaa la maqlayay qolooyinka mucaaradka maanta maqlayay waa la joojiyey dhiig bay xuskeedii lama joojin dabaaldeggeedii lama joojin waxaa loo bedelay in laysu yimaado oo la xuso oo loogu ururiyo dadkii tabaaroobay ee abaaraha ay xoolii kaga dhamaadeen intaasaan arrinteenna maanta ku daraya islimaadka kana isu dhimina waa sidii aynu xisbigeenu u kasdalgelinahay sidii kaarqaadashada kaarkala qaadanaya aynu dhammaanteen gobolka Gabiley u wada qaadan lahaa tusaale u noqonaya gobollada kale inaa waanan ka qaybgeli doona gobollada kalena haddii ilaahay idhaahdo intaasa soo gabagabeynta kale waxay noo hor doona koowaad aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi